بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميرور بوا دنيا كجوكتان كسر دبادة جوسار ديزاينز يوم مقال وصب إن شاء الله تعالى مقال كان وحن إذن كوجو فايدين دونا شن شيء وأذن كأقوني فوتوشوب لقنا يابيناد وباهي بدون تعيينات حقوقاته لسعود بناكسن مقال كده مسترن إن markale kusoo dhawaada fadlan hadii aad channelkan ku cusub tahay subscribe saar like garee muuqaalkan asxaabtaada la wadaagsi ay ula socdaan waxyaalaha aad ka faa'iideysanayso muuqaalkan waxaan soo kacsanaynaa photoshopka photoshopka soo kacsanaynaa insha Allah taala channelkan waxaa idinkugu faa'iideyn doonaa waxyaalaha la xiriira computer graphic sida graphic designerka video graphica photographica web designka iyo guud ahaan technologiyada oo aan xooga saari doono inaan wax ka ogaano insha Allah taala waxyaalo badan koorsooyin badan bay soo socdaan fadlan saad uga faa'iideysato subscribe saar kambalkan riix photoshop ka soo kacsanay halkan aan joogno environment-ga workplace-ka lagu shaqeeyo ama photoshop lagu shaqeeyo ama application walba ama software walba aan dhahe uu leeyahay halkan file-ka ku qoran tahay waa meesha aan rabo inaan kasoo gashto documentiga laba ayaa noqon karaa mid aad adiga markaas abuureysid ama mid abuuran ee aad rabtid inaad edit ku sameysid okay hadda waxaan rabnaa inaan sharaxno shan shay oo aad uga baahi badan tahay inaad photoshop ka ogaato shantaas shay kow waxaan soo qaadanaynaa sidee aad same document okay sidee same document aan ugu isticmaali karaa different window waxaa lahaa meesha ku shaqeynaysid qaanada ku shaqeynaysid aan lahaa okay aan aragno binaan soo dhaheynaa waxaan soo gashanaynaa adiga okay sawirkan aan soo gashanay marka hadda waxa inoo muuqdaa waxay tahay sawir faras yar iyo faras weyn marka waxaan rabaa in aan halkan sawir aan ku isticmaalo different place ama different window sa u fahmi kartid okay marka maxaan sameynaa saan photo ugu isticmaalo waxa ay sheegtaa sawirkan aan ugu isticmaalo waxaan soo furanaynaa window-ga window-ga kadib waxaa leeyahay orange kadib orange aan leenahay waxaa kasii dooranaynaa okay new window okay maxaa iyaduna soo baxay hadda ujeedaan laba qaanada noo furantay oo same document ah marka ma si isticmaali karaa maxaa ku isticmaali karaa okay marka hore aan dhaho okay aan dhaho okay hadda marka waxaan sameynaynaa window aan dooranaynaa orange aan leenahay waxaa ka dooranaynaa ama horizontal ama vertical okay waxaa dooranay vertical hadda waxaad ujeedaan in documentiga same documentiga ahaa aad different window kala isticmaashid adigoo hadba baahida aad markaas qabtid inaad wax edit gareysid aad ku sameyn kartid okay aan ku shaqo galno bal aan tijaabino okay waxaan rabnaa hadda sawirkan waa laba faras mid weyn iyo mid yar midka weyn aan rabnaa inaan kaliis kusoo reebno sawirka oo midda yar aan tirtirno ama meesha ka bixino okay sida sameynaynaa okay la soco waxaan sameynaynaa zoom aan leenahay si oo sawirka noogu soo muuqdo si fiican okay kana ujeedaan banaankaas dhan soo wada dhigaynaa inay laba farasta ujeedaan okay marka waxaan sameynaynaa waxaan dooranaynaa toolkan aan dooranaynaa waxaa loo yaqaanaa clone stamp tool oo waxaa loogu isticmaalaa in duplicate lagu sameeyo adigoon isticmaalin duplicate ka caadi control J-ga sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu qariyo muuqaalada qaar additionalka ku ah sawirka okay hadda aan sameyno waxaan soo doortay toolkan oo clone stamp tool laho kadib waxaan sameynayaa alt ya taawana kadib background-ga window kale ku dhahaa okay marka aan doorto wax kale ma sameynin waxaas afurtay new layer okay
kadibna sawirka doortay waxaa leeyahay alt click. okay dabcan waa ujeedaan faraskii caadiga ahaa iyo faraska yaraa hadda lugihiis way qarsoon yihiin. dabcan waa ujeedaan soomahan lugihiis waa kana way qarsoon yihiin. shaqadana intaan ka hayaa ujeedaan shaqada intaan ka hayaa ujeedaan lugihiis way qarsoon yihiin. dabcan waxaan rajeynayaa in aad fahantay hadhow haddii aad u baahatid inaad sawir kula isticmaashid different window asigoo ah one document am same document. dabcan waan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen stepkan koowaad. okay stepka labaad ee aa u baahan tahay inaad photoshop ka ogaatid waxay tahay waxaa jiro wax la dhaho color mode. color mode-ku waa sida aad u fahansan tahay graphic designer-ka ay ku xiran tahay. colorka waa waxyaalaha laga fiirinayo qofka freelance ma yahay qof professional oo graphic designer ma yahay meelaha laga fiiriyo. okay marka waxaan rabnaa inaan fiirino colorada sidaan ula macaamiltan kartid. marka hadda stepkan waxaan igu soo gudbin doonaa sidee adigoo photoshop isticmaalaya aad kasoo qaadan kartaa application kale colorkooda. tusaale ahaan oo kale waxaan isticmaalayaa photoshop, waxaan rabaa inaan color kasoo qaato Instagram ama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ama Facebook. aan rabaa inaan color kasoo qaato. marka wadadee u mari karaa waxaan rabaa inaan tuso. marka hore minimize aan dhaho Chrome-ka aan furto. ciwaankan aan ujeedin waa Instagram-kayga waa Gosari Designer. waxaan rabaa waxaan ujeedaan sawiradan projectida aan sameeyo waaye. marka sawiradan mid kamid ah kalaradooda qaadan doonaa aniga ku apply gareynayo Photoshop. okay sida u sameynayna ila arka waxaan soo furanaynaa file open aan leenahay. waxaan soo gashanaynaa hal sawir. okay qofkan photographic sawirkiisa soo gelinaynaa. okay hadda marka waxaa haysanaa sawir oo photographic haysanaa. waxaan rabnaa marka tusaalahan oo kale sawirkaan rabtaa inaad waxyaalo ku dartid sawiro dheeraad ku dartid. marka kalaro waxaa rabtaa oo Instagram ku yaalo inaad kasoo qaadatid. okay sidee sameynaysaa? okay inay fahantiin arjina jidkayga. okay waxaad dooranayaa airdrop tool aad dooranaynaa. had tusaalahan aan fiiriyo. okay sawirka marka wuxuu noqonaa fiiri inta ka fiiri kalarka wuxuu ku noqonayaa midka aad dooratid. marka aad rabtid inaad sawir edit gareeyo ama sawir aad qurxisid qofka waxaa laga doortaa wejigiisa meesha uu kasoo ifaayo. okay hadda dhaho hadda tusaalahan garka ka doorto mid madow ay noqonaysaa. haddii aad shaarka ka doorto cadda wuxuu noqonaa brown camal noqonaa. tusaalahan oo kale kalaro waxaan rabaa kala duwan inaan kasoo qaato ama Facebook ama Instagram ama Twitter ama other application kale anigoo isticmaalaya Photoshop. sidee ku sameyn karaa? dabcan ila socda. okay waxaa sameynaysaa adigoo oo muuska left right ka taabanaya ayaa daraaga sameynaysaa. marka hore aan noqdo waxaa leenahay minimize aan leenahay Photoshopka application kana minimize aan leenahay. marka okay marka hadda waxaan rabnaa midkaan calanka buluuga ah backgroundka buluuga ah inaan qaato. fahanteen? okay markaas la socono jida hadda muxuu noo yahay waa brown waa cadaan cagaar noo yahay. marka kasoo gudbeena hadda inta joognaa waa orange. okay hadda waxaa joognaa Instagram color blue background blue aad ku dul taaganaa. okay waa kasoo tageynaa. okay blue calan taaganahay blue dye taaganahay. marka habkan waxaa ku samaysan kartaa waxaad u baahan tahay qalab soo qabo design ku yaala Instagram in aad colorkiisa ka soo qaadatid oo isticmaalayso Photoshop. saas ayaa ku samayn kartaa. dabcan inaad fahanteen rajeyna oo aad ka faa'iideysateen stepkan asina. stepka saddexaad ee aan idin soo gudbin doonaa wuxuu yahay sidee loo isticmaalaa pen tool. pen tool waxaa la lahaa. okay pen tool maxaa la lahaa? waxaan rabaa inaan wax yar idin tuso pen tool waxa lo. pen toolku waa qalinka aad ku sameynaysid isbedelka pathka iyo shapeska adigoo aad gacantaada ay design aad sameeyso kale. hadalka kooban pen toolku waxaa lagu sameeyaa
drawingka lagu sameeyaa ama Python ku ahaado ama shape ku isticmaal. Okay, marka sidee u sameyn karaa pen toolka, maxaa ku qabsan karaa? Okay, pen toolka waxaan sameynaynaa, waxaan rabaa hadda pen toolka inaan 3 step niga tuso insha Allah taala asigoo dhameystiran. course kale ayaan kasoo bixin doonaa ama muuqaal kale ayaan kasoo duubi doonaa. Okay, waxaan rabaa muuqaalkan inaan asiga jarjaro. Okay, waxaan isticmaalaa pen toolka. Okay, waxaan leeyahay okay la socda. kaliya waxaan rabaa inaan symbol ahaan idin tuso waxyaalaha pen toolka. waa waxyaalaha ugu fiican ee Photoshopka uu leeyahay. Okay, dib malahan ha ka baqina insha Allah haddii aan markiin weysid isku day marka leente waxaan hubaa waxaad ku celcelisid waa mar ay ku hagaagi doonaan. kaliya waxaan rabaa inaad tusaale ahaan idinku tuso sida pen toolka loogu isticmaalo markaa rabtid inaad sawir jarjartid. Okay, okay, marka inta taaganahay waxaan sameynaa okay sawirkaan dul taaganahay waxaan leeyahay double click looga gafraa. marka waxaan rabaa inaan dhaho inaan asiga backgroundkan cagaarka inaan jaraan rabaa. waxaan soo isticmaalay pen tool. qaabka u isticmaalaan ma arkaysiin. waxaan leedahay left right aan leedahay max selection aan leedahay. Okay, kadib okay aan ku leedahay waxaad taabanaysaa backspace amdal midka aad rabtid. dabcan hadda waa ila jeedaan backgroundkii cagaarka ama duuga ahaa meesha waa ka saaray. Okay, marka pen toolka waxyaalaha ugu fiican yahay ama ugu fududahay waxay tahay waxaa ku samaysan kartaa si fudud waxaa ku jiri kartaa sawirka backgroundkiisa ku jiri kartaa. Okay, pen toolka muxuu kaloo ii qaban karaa? Okay, isla fiirino. waxyar ayaan isla arkaynaa. Okay, tusaale ahaan waaya kan waxaa ka dhigaynaa custom sis waxaan dooranaynaa 500 white ka waaye ama midhiska balaacaasa u fahmi kartid. height kan waxaa ka dhigaynaa 400. resolutionka 300 ugu fiican iskaga dii dhima lahan 300 ka dhigo. Okay, hadda environment aan ku shaqeyn karnaa noo furan. Okay, qisaqo pen toolkan isticmaalina waxaan rabaa inaan shape diyaariyaa rabaa. shape-ka marka saan markaa dhahdo shape ku diyaarsan sax laakiin waxaan rabaa inaan pen tool aan isticmaalana shape diyaariyo. Okay, aan diyaariyo bal okay, marka kalarka aan ka bedelo aan dhaho white. Okay, marka pen toolka waxyaalaha ku fududeynaa waxaa kamid ah in aad ku isticmaali kartid shape ku isticmaali kartid. Okay, waxaan sameynaynaa kan aan iska qarino kanna kalarka aan ka bedelno. Okay, jidaan waa edit gareyn kartaa, waad toosin kartaa, marka wax waa kusoo kordhin kartaa. marka waxay ku fiican tahay maadaama caleen u eg tahay inaan cagaar ka dhigno. Okay,
okay hadda waxaa kaloo oo pen toolka ka caawinayaa inaad ku diyaarisid shapekaas, inaad ku diyaarsatid waxaa la lahaa pathka oo ah waxyaalo oo sheeg markaa sameynaysid selectionka oo kale inta markaa sameynaysid markaa drawing qofka wajigiisa wax ku edit garaynaysid oo kale waa lagu isticmaalaa. tusaale ahaan oo kale inta qofka waxaa rabtaa wajigiisa inaad qurxisid aa rabtaa okay waxaan dooranaynaa path okay inta taaganahay waxaan sameynaynaa back selection aan leenahay, waxaan tagaynaa image adjustment aan ka tagaynaa tusaale ahaan le waaye sample waaye marka waxaan rabaa inaan intuso jidaan sawirka wajiga waa isbedelay jidaan marka infact meesha aad rabtid positionka aad rabtid wax ka bedeshid waa ku selection gareyn kartaa si fudud. طبعا waxaan rajeynayaa sina stepka saddexaad inaad wax ka fahanteen insha Allah taala. stepka afraad ee aan rabo inaad idin soo gudbiyaa waxay tahay okay sidee sawirkaaga aad ugu soo muujin kartaa iftiin sidee sawirkaaga ugu soo muujin kartaa. okay aan isla socono waxaan sameynaynaa stepka afraad waxaan rabaa sawir mugdi ku jira oo kale oo meel mugdi ku jira oo kale inaan iftiin ku furo. okay sawir raadina okay kasoo qabkana qaadanayno okay marka sawirkaan aan rabaa inaan iftiin ku furo maxaan sameynaa marka iftiin inta ugu furaa cameradan aan rabaa inaan iftiin ku furo wax soo ifay aan ka dhigo. okay wax soo ifay aan ka dhigo haddii sawirkaan laga fiican yahay mid kale aan ku sameynaynaa. okay gabadhaan sawirkeeda dooranaynaa okay marka waxaan soo dooranaynaa brush jidaan brush toolkan aan soo dooranaynaa tusaale ahaan oo kale zoom leh inta waxaa ka dhiganaynaa waayadaa ka dhiganaynaa jidaan meeshaan aqoonta ku dooranaysaa kadib waxaa sameynaysaa control saddex okay waxaan sameynaynaa waxaa dooranaynaa color moodkan aan dooranaynaa waxaa tagaynaa color edge dooranaynaa double click ku leeyahay jidaan meeshaan ee blend optionka ku qorantaa tagaysaa inta transparency-gana xaalad ka qaadid. okay marka xaalad ka qaadid jidaan waxaa yaray siska yareene capacity-ga yareene siska maan cafan capacity-ga yareene marka hadda fiiri okay jida gabadha dhabanadeeda xoogaa mugdi ahaa saa marka lalaho iftiin waayo. okay saa marka lalaho waa mugdi iftiin marka waxaan ula jeedaa waxay tahay sidee aad ku isticmaali kartaa brush adigoo raba inaad iftiin furtid ama sawir iftiinka furtid oo kale insha Allah taala waad ila aragteen habka iftiinka loogu furo ama iftiinka aad ugu furi kartid.
oo kale iyo waxyaalaha qofka wejigiisa foolxumo ka dhigi karo. hadda waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabeeno qaybteena shanaad ama stepkeena shanaad aan kugu soo bandhigayno sida qofka wejigiisa looga nadiifiyo waxyaalaha dheeraad ku ah. waxaa laga yaabaa inaad tahay photographic sawir qaade ah. qofka customerkaaga markaa sawirka kasoo qaadid waxaa macquul ah in wejigiisa xoogaa uu leeyahay shucaac yar. haddii aadan aqoon u lahayn inaa waxyaalahaas uga kaxaqabtirso si uu adeega uga helo, waxay noqonaysaa inuusan hadhow haddaadan ka xaqabtirin inuu adeegaaga ka helin. saas darteed muuqaalkan daawo siiba qodobkan shanaad daawo si aad uga faa'iidaysatid. la soco waxaan qaadaynaa stepka koowaad. waxaan soo furanaynaa document, waxaan soo gashanaynaa sawiraan soo gashanaynaa. sawirkan haddaad ujeedaan waa hal gabar laakiin oo midna edita lagu sameeyey mid edit lagu sameyn. midkan aad ujeedaan waa midka wejigeeda oo fiman waxaa lahaa, kanna waxa weeyaan asiga oo aanan lahayn fimanka. marka sidee ku sameyn karnaa? haddii la socda sidaan u sameynayno. waxaan sameynaynaa max selection. dalaa leenahay, copy aa leenahay, kan waa qarinaynaa. marka waxaan rabnaa kan inaan nadiifino. kadibna aan ku bedelno. la socda waxaan sameynayaa marka hore waxaan soo dooranayaa brushkan aan soo dooranayaa, toolkan aan soo dooranayaa oo loo yaqaano spot healing brush tool. waxaan rabaa inaan qofka wejigiisa aan wasaqda iyo waxyaalaha finimada iyo waxyaalaha dheeraadka ku ah wejigiisa inaan ka nadiifiyo. waadna la socotaan rajina. way la socotaan rajina. brushka waxaa soo doortay toolkan, brushkan soo doortay wuxuu ka caawinaa inuu wejiga ku nadiifiyo. marka aan isla socono meesha click oo kaliya ku leedahay jida hore waxay ka noqotay nadiif. control Z aan dhaho jida wasaq, hadda click aan idin dhaho wejiga nadiifina. marka waxaan rabaa inaan tuso sawirka asalkiisa iyo marka aan nadiifiyo sidoo noqday. waxaan rabaa inaan xoogaa qurxis yar ku daro. waxaan dooranaa image, waxaan leenahay adjustment, waxaan dooranaynaa graphics-ka. waxaan sameynaynaa waxaan leenahay high substitution-kana dooranaynaa. brushkan aan dooranaynaa. waxaan sameynaynaa la socda.
okay marka dib waxaan sameynaynaa meelaha dheeraadka ku ah ayaan ka haweenaynaa. okay marka waxaan rabaa inaan labada sawir idin tuso midkaan siduu yahay iyo okay marka hadda ila arka sawirka koowaad asalka waa kan markaan idin ku sameeyay sidaan oo noqday dabcan waad dareemi kartaan inuu sifad bedel jiro. haddii aad ka faa'iidaysatay oo muuqaalka ku raaxaysatay fadlan subscribe inoo saar, like garee, share u dheh asxaabtaada si kula faa'iidaystaan waxaad ka faa'iidaysatay. insha allah muuqaalka xiga waxaan isku dhaafeynaa noloshada waxa ugu muhiimsan ka faa'iidayso.